waddanku markuu lahayn dawlad waa iska sidaan shirkadan oo korontada ayaa waddan iska xiranaysa oo dadka mar lahaay oo islaamka iska lahaay waddaas umad ka dhaxaysa ay darbi ku gooseen oo iska wareegsanayeen dawladii ma ka hadli karto dadkii shacabka ayaana cabaaday oo xaafadda deganahay in waddan laga galay xaafadii oo laami ay ku xirteen oo dhagax ay ku wareegsadeen waa dhibaatooyinka dalka ka jira ayaa noocan shirkadda beek ayaa sidaan sameynaysa wadooyin muhiim ah dadka shacabka maraan oo maaragtay in la xirto ay qalad tahay ay iska xirteen oo dawlad ayaa ka hadli kartiin qofna ay ka hadli karin dadka shacabka ay cabaadayeen waa kana qaar kamid ah oday dhaqameedkii degan xaafadaas oo aad ugu camanaya shirkadda beeko dhibaatada ay ku hayso iyo wadooyinka ay iska xiranayaan ayada dawladda Soomaaliya wax walba ka soo ogtahay iskana in la tirayso beekana dadka shacabka wadooyinka xiranayso wala hadli karin ma ogtiin dariiqa ama jidadka in maanta aqal isweydiin doono in wadada qof dadka ka dhaxeeya aaxiratan ee halista darbiga ujeedin duqoobi ay ku xirteen way wareegsadeen oo wadada magaalada xaafadda laga soo kala ayaa la waayay ma la hadli karo waxa lagu sheegi karo dawladii waxa kama qaban karto waa company ka war iyo shirkad Muqdisho ayadaba company oo shakhsi leeyahay ayaa sidii dawladda u dhaqmaysa oo dadka wadooyinka ka xiranaysa ayada dawladii hadli karin qaar kamid ah oday dhaqameedka degan xaafadaasi ayaa ka sheekeynaya qaabka wadada u xirtay iyo dhibka ay ku qabaan waxaan ka cabanaynaa meesha la yiraahdo markaska agtiisa dhulkan carro guduudka oo iska galaan dhulka carro guduudka iyo dhulka carramadooda meesha iska galaan ayaa waxa ka jira dhibaato ay ku hayaan nimanka la yiraahdo beeko iyo sida la sheegay bruj oo wada socdo dhibaatadaas oo ah inay dhiseen derbi dheer oo 3 kiiloomitir oo wax wada aan lahayn oo umadi kala xiray haddana ay rabaan inay ku daraan 4 kiiloomitir oo kale haddii si kasta loo hadlana ay diideen inay jarayaan wax allaalay wixii wadooyin oo dhulkaas soo galo dhan derbigaas oo muuqaal ahaan marka aad fiiriso waa derbi ilaa 4 mitir dhererkiisu kor uu gaarayo koolba waardiyaal 4 gees kule iyo dhaxday meel waliba kaamirooyin iyo arday askar qori haysta ay la saaran yihiin umadina ay laynayaan oo cid u soo gali kartaa aysan jirin wadooyinkoo dhan inta xirteen meesha ay ku haystaan oo muuqaal ahaan aad moodo inay ayaguna yihiin yuhuud dadkan oo yihiin Falastiinta islaamka la iska ilaalinayo kale umadii waxay ku hayaan go'doonkaas haddana waxay rabaan mid kale inay ku daraan cid looga dacwadana male hantida ummadda ku baabi'inaya marka dhibkaas way kan ka dacwoon meeshaan joogno maanta waaye minuu sheegi kartaa marka caqabadaha ugu weyn hadda ku qabtaan shirkadda caqabadaha ugu weyn oo lagu qabaa waxay tahay jidku marka uu xiran yahay jidku waa sida dhiigu xididadu dhiiga ay u qaadaan jidka ugu wareejiyaan ayay jidadkuna nolosha bani aadamka sidaas oo kale u yihiin haddii xidid sinta laga xiro waqti ma noolaa karto marka wadooyinka inay xireen sida xididadaas oo la xirayo kale noqdeen bani aadamku waa kala nool yahay waxa dhacday derbigan ninka dhinaca galbeed ka jira haddii uu rabo inuu aado dhinaca bari hadduu rabo inuu aado inuu meel kasoo gudbo una xamar yimaado ama afkoo yimaado maahe marka dhibka intaasaa taagan umadii kala xiran waxaan kala nahay sida labadaas qolo haddaan kuu sheegayo cadowynada daran ay ka dhexayso kale maanta taaganna waana ka dhex gore qaraxdaba dhibkaasaan haysto marka waayahay marka cabashadiin hadda ma u gudbiseen dawladda adeer dawladda intaanan u gudbin ka hor dhibku markuu yimidba dawladdu ayagay ku dhex jirtaaba cidda dhan ee shaqada wada oo ayaga wadda u yeelaaba dawladdiiba waayo waxaa la dhihi jiray dadku war markii dhibku yeero waxaa loo cararo fafiru ila allah war masaajidka loo cararo haddii masaajidka qayla ka yarta ka warrama dawladdii loo dacwoon lahaa ciidankii maanta waxaa taagan ciidan markay u yarta 200 oo booliisa oo xamar ka tago waliba shaqo kule shabeellada hoose ayaa taagan oo ummadii baabi'inayo dadka laynayo ayaga guriga u dhisay marka dawladdu loo dacwoon lahaa arrinta wadaba xagee laga baxaa marka waaye maxaa digniin u diraysaa marka digniinta u diro horta digniin maaha anigu hadda awoodan wax ugu diga marihi laakiin waxaan rabaa inaan ogeysiis u diro inta qaybood oo wadadan dhismeeda ku shaqada leh waa qayb waa dawladda qayb kamid ah oo booliiska ugu horeeyo booliiska waxaan kala saaraa 2 qaybood nimanka saraakiisha oo ciidanka amarka soo siina oo macallimaadi ugu horeeyay ee ragga kale la midka ah dhamaantii waxaad ogaanaysiin korneylada iyo generaalada idin xiran qabiilna idin ma xirin annagana nagama adkanida nidaamka dawliga iyo sharciga idin xiray hadaad sharciga nidaamka ilaali weydin oo inta soo raacdin ummad la dhacaho la dila oo beerkooda la iibsana inta soo raacdaan aad shaqada wax ka qabataan nidaamku waa baabaa ee saas ogaada adinki baawarta buruufka iyo wadisiya lacagta dad ilaali weydin lagu ma ilaali karo nidaamka ilaaliya qolada saasan leeyahay qolada askartana waxaan leeyahay